deeqdan biyo-dhaamiska ah ayaa saaka si rasmi ah ay u kala direen badhasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse iyo weliba maayirka degmada Ceelaf Weyn. xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceelaf Weyn ayaa si rasmi ah u kala diray deeqdan biyo-dhaamiska ah oo ay soo bixiyeen guddiga abaaraha heer qaran ee Jamhuuriyadda Somaliland. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii deeqdan biyo-dhaamiska u kala dirayay deegaanada aadka ay abaartu ugu dhufatay meeshii ay naf bidayeen ilaa iyo hawd ilaa iyo gobolka Sanaag Ceeri Gaabo ay u guureen waxa lagaga tagay deegaanadii iyo tuulooyinkii maato kici weyday iyo dadkii jilicsanaa waxay maanta u dhintaan waa biyo la'aan iyo baad la'aan biyihii uu soo gaarsiiyay badhasaabka gobolka Sanaag Axmed Istaber oo 100 booyadooda ayaan soo dadkii laga tagay ee goobaha lagaga tagay ee maxasta ahaa way oomayiin biyo iyo baatoona ma hayaan qayladaan horo badanna waanu diray waanu mahad celinaa marka hore biyahan soo gaaray ee badhasaabku sido ee 100 booyadooda xun baa ka jirta gobolka Sanaag ha ugu sii daraato degmada Ceelaf Weyn runaantii dadkii guuray ee u guuray hawd iyo Ceeri Gaabo waxa ka sii xun dadkii lagaga tagay maatada ahaa deegaanadii iyo tuulooyinkii dadkaasi maanta waxay u dhintaan waa haraad iyo baad xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxay gobolka Sanaag ka qabatay oo dhan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay tala qaran ha laga yeesho tirada biyo-dhaamiskaasi waxay dhan 100 booyadood 100 booyadood 10 ka mid ah dadkii soo guurtada Ceeri Gaabo u guuray ayaa loo jaray 9 booyadoodna waxa weeyaan tuulooyinka degmada hoos yimaada ayaanu gaarsiin doonaa tuulooyinkaas oo ah 27 tuulo oo ah 27kii tuulo oo ugu liitay degmada waxa hoos yimaada wax ku dhow 60 tuulo 27kii ugu liitay ayuun baanu ugu talagalay inaanu gaarsiino abaaraha heer qaran iyo heer gobolba gurmadka ayna soo gaarsiiyeen waan uga mahad celinaynaa badhasaabka gobolkana si gaar ah ugu mahad celinaynaa degmada Ceelaf Weyn iyo Garadag iyo deegaamo kale oo la mid ah runtii abaar baahsan baa ka jirta roobkii deyrta waa la waayay dadkiina waa guuray wax loo guuray degmada Ceeri Gaabo tuulooyinka wax lagaga tagay dadkii maatada ahaa ee jilicsanaa xoolihii iyo raggii ayaa tagay maatadii ciyaalkiina wax lagaga tagay tuulooyinka 120 booyadood oo loogu talagalay deegaamada abaaraha oo runtii waxba aan ka tari karin waxalaale waxay ka tari karaan at least inay aan dadkii lagaga tagay deegaamada ee xoolihii ka hayaameen 220ka 45 booyadood oo kamid ah waxaan ugu talagalnay soo guurtada hadday u guurtay dhanka maxaan ku raahdaa galbeedka Ceeri Gaabo iyo hadday u guurtay bariga Ceeri Gaabo 45ka booyadood waxaan gaarsiin doonaa soo guurtooyinka daaladno 9 booyadood oo kamid ah waxa lagu qabanayaa degmada Ceelaf Weyn 85 kamid ah waxa la geenayaa degmada Garadag ka daaladno insha Allah bismillaahi kariim deeqda waxaan uga mahadnaqaynaa guddida abaaraha heer fariinta labaad waxaan u diraynaa dhammaan dadka muxsiniinta qurba jooga hay'adaha samafalka halkan waxa ka jirta abaar kulul oo daran oo roobkii hore guguna uu sagsaag ahaa kii dayrtana aanay helin ilaahay baryadiisaynu ku tiirsanaan